naqaan midda koowaadi waa tii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan oo ah maamaahiga baraysa inay dunidu meedka tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale ugu qorayn maanta qofka labani berri iskuma hubi karo haatan kii laagaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaaraysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadan moodo inay tahay waayo aragnimo rugnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxsay haddana lama waayo dadka qaar iska dhaga tira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogta ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila cayaarka sareerada oo maalintaa haysto go'aamadiisa oo idin ku sareeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya ama magoomooni ku garamara sayid maxamed cabdulla xasan ayaa ka mid ahaa ragii gabyii ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay tudcyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daalliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daaliga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusay soo dibiriyaaye dayraanka curashaa ku xigi daacigiisadane marunbuu darooraa intuu daadka soo rogoe baldayaay duraabtaa horuu daafta mariyaaye nin dareensan inuu duukayo yay doqontu moodaaye inkastuu dunqaarahan ka dhacay dulugla cayroobo hawdayrin deeqii alluu dooc ka sugayay gabyaagii isaguna murtidhaariga ahaa ee sayidka ay isku xilliga noolaayeen isku dadahana ahaayeen laga oran jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanadeedayn haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeenoo koruu isagu tabaaraysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaa oo kale dhaqan ahaan niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midna ula soo degdegin dabadeedna intuu nafsiga fadhiga ka kiciyo ayuu ugu dardaar wadinayaa halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid ah ay iyaguna ku dambayn doonaan sidoo kale intuu nimankii daawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsadeen maalmahaas gabay uu arrintaa ka teliyay tuuc ka mida oo mahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa dawlada raggaba maalin bay dani banaysaayeen nin barwaaqa seexdaba wad baan laga bariinayne idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay baraani u kulmaan beliya raaskiinu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreeday mahmaahda labaad ee samatar adeegsaday waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofkii u dhigmi kara ayaa lagu beegaa waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado gabayadiisa bidkood xilligii uu samatar mahmaahdaa u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay
hal-abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. waxay ahayd horaantii sanadihii 1900 iyo 60-nadii qarnigii aynu soo dhaafnay. labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eeddu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabiyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. samatar oo intii muddo ah aan silsiladaa wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixuu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu reelinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaaxa ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowlalada ku hubsada, aar baa bushiisa laga argagaxo oo miciyaha isku lisaaya, libaax laga wada giigay oo buuhooda oo idin looga cararay, aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. maansayahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaas hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bereeri kale ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo mahmaahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi: bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kale, ay bidixdu qaadaaye biixida tagoogada hore yaa lagu budeeyaaye ogow belaba beladii xigta yaa la isku beegaaye.